waxaa gobolka Doole dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen iyo wali ka jira dhibaato ba'an oo ciidamada New Booliisku ku hayaan bulshada rayidka iyadoo dhibka bulshada lagu hayo uu wali sii jiro dad rayida oo ku sugan gobolka Doolo ayaa sheegay in ciidamada dawladda deegaanka Soomaalidu ay dhib badan ku hayaan ciidamada ku sugan gobolka Doole gaar ahaan danood iyo caadiye iyo curiye wardheer lehelow iyo daraatole ayaa geysanaya falilid ku ah xuquuqda aadamaha waxayna ku lug yeesheen dambiye iyo tacdiye waaweyn lagu magacaabo Axmed Salaad oo ay goobjoogayaal ku sugan agaga u tagay ay sheegeen in isaga iyo askar u wata ay geysanayaan talaabooyin argagax leh jirdilyo aan lahayn bartilmaameedyo cid gaar ah oo lagu socdo balse cid walba ay u geysanayaan waxyeelo saf maraha ciidamada New Booliiska ee lagu daadguriyay gobolka Doolo sabab waxyeelooyin ballaaran iyo burburin iyadoo ay tabisay sargaalkan oo wax dhaafisan magaciisa oo kooban ee Axmed Salaad laga haynin ayaa wuxuu ku lug yeeshay dambiye argagax leh in fagaaro dharka lagaga dhigo dad rayid ah taasoo qeynun walba ku ah dambi xad dhaaf ah iyo inuu askar wata ay geysanayaan dilal toosa oo gaadhay tiro ilaa 6 inta la xaqiijiyay tabahaati xaaladda ka jirta gobolka Doolo waxay noqotay mid xanuun ah oo aan ilaa hadda aysan jirin isbedel inay dareemaan dadka rayidka ah aan lagu haynin dambiyo iyo waxaan dhaafisanayn aana qoys oo ka dhacday gobolka